nin dhalinyaro oo zina ka baqaya qaabab kale biyaha ma isaga keeni karaa buu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ha soomo يا معشر الشباب حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاع صون كبتصو إن شاء الله تعالى إسقى شهوة هذا تشبنه وكل فاني يعني وحو بربرين يا لأن وحو أنت بدن درين كوحو كي ماذا نفقد الشرك وقادنايو هذه نفقد الشرك لغا غويو او لا عنا قبتيو dareenkii shahwada ayaa yaraanaya inta kaliya ma aha ajirna waa kugu jira sooma marka ajir iyo daawo isku qaado sooma fiicna xaraana kaga badbaad طيب waxa jira fataawa ay leeyihiin Abdullah ibn Abbas iyo Abdullah ibn Umar labadaba ka asaxay oo saxiixa oo ay leeyihiin xalka nabigu bixiyo waa sax laakiin ruuxa haday isu qabato haduu yiraahdo laba mid zino ama biyuhun iska keeno gacan iska keeno marka waxay leeyihiin al-istimnaa'u ahwan markaasi laba shar baa la kala dooranay labada shar kala fudud marka sooma illa wa hadad la soo istaagto marka wax weeyaan way kala fudud yihiin sooma لكن حلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالصوم فإنه له وجاء waxay sheegan dhaqaatiirtu wana wax jira runtii baxthi aan maalin akhrinayo nin dhakhtar uu qoray ilaa 8 cudur baa laga qaadaa bay ilaa 8 cudur biyaha gacanta la isee keenayo si caadi aan ku iimaanayna la soo saarayo 8 cudur oo qaarkood halis yihiin baa laga qaadaa shariicadu shay haday diido sideedaba xikmad baa ku jirta ogow shay hadii la diido dhibka ku jira ayaa badan ama garo ama garan